السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أصحابتي بليز soo dhawaada ii sheeg qaladaadkayga dadka kale oonan arkin maxaa yeelay qaladaadkayga waa inaan saxdaa anigu dadka kale maaha. macnaha waxa waaye ii sheeg aniga qaladaadkayga si aan u saxdo dadka kaloon ogaanin aniga ceebtayda macnahu sidaa uu iskeenaya insha Allah. next wuxuu noqonayaa aqoontu waxay ku siin doontaa awood laakiin dabeecaddu waxay ku siin doontaa iyadana xushmad. waxaa loo baahan yahay xushmad iyo aqoon si la isku heli lahay. kii labadaas isku hela ayaa nasiib leh. is leedahay sameey ha ka baqin inaad ku dhacdo ka baq inaadan isku dayin sameyntooda. muraayaddu waa saaxiibkayga ugu fiican maxaa yeelay markii aan ooyo iyadu ma qos weligaa ha u sharixin nafsadaada qof kasta oo ku jecel. qofka ku necebna adigu uma baahnid asaguna ma rumaysan dooniyo. aqoontu waa hubka ugu awoodda badan kaasoo aan u isticmaali karno inaan ku bedelno caalamka oo dhan. maalin kasta oo cusub waa fursad kale taasoo aad ku bedeli kartid adiga nafsadaada. haddii aadan ku riyoon karin inaad wax samaysid waan hubaa waad samayn kartaa. Please try. It's better than not try. videogan xigay waxaan u sameyn doonaa si macquul ah. Please asxaabay subscribe, like, share tan ugu dhiirigeliya. waa codsi anaga xageen ka imaado mar horena waan idin sheegnay asxaabay badanaa viewskaniga ma hayno laakiin subscribe ta alxamdulillah ku soo dhawaada channelka kambalkan hala furto. la socod wanaagsan videogan iyo videoga xigaba waxa fiican naga fisha. Number 5